nebi yaxye waxaa loo geystay dil arxandaro ah waxaana la gowracay isaga oo nool. nebi yaxye waxaa loo soo diray reer binu Israa'iil oo ahaa reerka uu ka dhashay, waxauna ahaa wiil ku dhalay nebi Zakariye. waxa uu ahaa qof ay jecel yihiin boqorada, dadka caadiga ah iyo qof kasta oo arka isaga. haddaba maalin maalmaha ka mid ah mid ka mid ah boqoradii reer binu Israa'iil ee waaga xukumayay Dimashq ayaa damcay inuu guursado gabar xigtay oo ay qaraabo dhow ahaayeen, sharci ahaanna u bannaaneen marka loo eego kitaabka xilligaa jiray ee Towraat. dabadeed boqorkii naagta guursan lahaa ayuu ku yidhi arrinkan guurkeenna ah waxaa noo soo weydiinayaa nebi yaxye. kadibna boqorkii waxa uu yimid nebi yaxye wuxuuna u sheegay arrinkii oo ku yidhi ma guursan karaa gabadhan. nebiguna arrinkii waa uu ka diiday, wuxuuna ku yidhi guurkan waa xaaraan. kadibna boqorkii waxa uu ku yidhi waxaan yaxye ku siin doonaa hanti, maal iyo boqortooyo ee arrinkan iga yeel. balse nebigu waa uu ka diiday, weliba diidma adag. dabadeedna boqorkii waa uu iskaga soo tegey isaga oo quus ah, wuxuuna u yimi naagtuu guursan lahaa. arrinkii oo dhanna waa uu sheegay in nebigu diiday guurkooda, xaaraanna yahay guurkoodu. naagtii arrinkii ayay ka xumaatay, waxayna nebiga u qaaday cuqdad iyo caro fara badan. dabadeed waxay la wadaagtay arrinkii oo ay u sheegtay hooyadeedna waxay kula talisay oo ay ku tidhi markaad boqorka u tegiso si fiican isu qurxi gabar yahay. markii uu ku arko boqorku si dareen uu u galo, marka uu tagto ee uu ku yidhaahdo wax iga codso, waxaad ka codsataa madaxa yaxya ibnu zakariya calayhi salaam. haweenaydiina sidii hooyadeed fartay ayay samaysay.